Hakuna Matata. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. warnimayo anigu maanta waa qiiraysana damiirkii ummadda Soomaaliyeed inuu soo laabanayna waa u malaynaya mucaarad iyo muxafid dulmiga Kenya ay nagu wado isku mowqif bay ka noqdeen ganacsatadii beeraha Kenya waa kuwii shalay yiri kolayga Soomaaliya qaadka waa joojin doontaa anaga kala hormarayna siday sheegeen bay noqotay ganacsatadii Soomaalida ee qaadka keeni jiray waxay yiraahdeen qurunkan iyo qashinkan aan Kenya ka soo dalalno mar dambe Soomaaliya keeni mayno marka waxaan soo xasuustay shiribkii Ilaahay hawna xariis abshir bacadle ahaa qaraya moosa qaad ka roon ka qaal yar kana qood macaan qiyaamana la isku qabsan ma aryaa shiribkaasu shiribka yaraanka waaye kii curadkan ku wada qoroga diire qaac ku dar qanday u roontahay qaaban anna qaraya diir waxaan ahayn haddaan ku qaadho waa qanda warniya warba haysaane ina reer berbera ayaa waxa jiri walle anigii qodaana la wada qabin war ganacsatadii keeni jirta haday dhahan qaadka waa joojinayna muqayiliintii cunu jirtana waa ku raaceen waxayna dhahan cadawgeenna Kenyaatiga qaadkii laga diiday beeraha Itoobiya hadii aan ka gadanayno marqaankii iyo hurdada sawsidii loogu jiri maayo bal maxay isdhaamaan haddaan wadar la joojaynin intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin tush warje isburi ilaga guuri gooma dagi haddii Kenya ay reebatay Itoobiya baan ka doonanaynaa bay dhaheen waa hurdayna wariya toosan guurnay wariya beriga hadda ka hor xamar dagaalada qashanka oo ka socdeen igaarniman risaas qaad laga siistay oo saxaad ugu yimid aasay ku shirbeen waxay dhaheen ma rubac jaad oo risaas rag laga siistayaad rabtaa iyo xishoodow gadaal u dega asoonimo haddana halaysee lamadoo qorayo yiri asa la yiri qaybjaad hoon afar qofood ku qaybsanaad u qaylihe asow shib haddana intayro mid gaar intuu la baxoornay xooga yara qaadaata shay lamadoo qora iga dhedhansi asow yiri dud jaada walaxaan dhamayn i dhedhansi aan way dhibaahe iga tag mugaanugu taas waxaan uga jeedaa qashanka Kenya inaan tuugno maahina turturiyay waxaan anigu leeyahay madowgiya cadaanka dad waa kala maarmaane nisa walaalka muuneeyay baa mayra soofsaday isma kaabsiga iyo wada jirka laga macaashaaye magaciin jiray ceebta waa la iska mayraaye waryaa maali jiray ayay naga maraysaaye umidooba danihiina wad maadinaysaan iska daaya mirowga waa maadinaysaan war gabar caashikiin la yidhaahaa soo haystay waxayna tiri duleedka nifaasho iyo Nairobi intaanan gubin dalxiiska Mombasa iyo dakhliga intaanan jarin si wacan daris ila noqo war gabar kale ayaduna haysto waxay tiri intaanan qaadka iska dayro Nairobina ka qabsanin Kenya qaladka iska daa Kenya qaladka iska daa qiyaamaha kugu dhaceey ugu dari weysa war qiyaamaha Kenya ku dhacay intuu kugu seegay adiga war maanta baarlamaanka Kenya islaantii wasiirka arrimaha dibadda u ahayd ayay su'aalo weydiinayaan war aawo islaanta ninkii qabay muu naga dhacsado war nimankii qabay oo kuwa su'aalaha weydiinaya warka naga sugniyo waranka ku dhacay waxayna dhaheen sababta Soomaaliya si degdeg ah xiriirka loogu jaray waa inaa cadaysaa ayadaaba madoobe ay caday kartaa taas wariya waa adab darantay baarlamaanka Kenya iyo wasiirka Kenyaatiga midna ma aqoonsanin warnimayo shirkadii shidaalka sahmisay ee Spectrum la dhahay war ay soo saartay waxayna tiri Kenya ujeedo kale ay leedahay annaga dokumentiyadii aan soo bandhignay meesha la isku haysto kuma jirto